adigu ciisa wali ma sanad hargeysa shaqo soo doonatay runtii aad baan u naxay oo interviewgii waxaan ka jawaabi lahaa waxaan ka naxay qabiilka ugu horeysiiyay wasiirku aad baan naxay runtii aad baan uga murugooday aad baan uga damqaday marka wasiirka hadalka yidhi waa kuma Dr. Cabdiwali oo wasaaradda jooga wasiirka wasaaradda runtii markaan ku yiri wasiir anigu aftibaadii Taiwan ku yiri oo Jibril Korbay dhalay hargeysa intaasan ku soo leekaaday de Djibouti iyo meeshaad ka sheekeynaysan ma garanay waa taariikhdeeda ugu sheekay daawadayaal hadda barbarkayga waxa taagan Xamda Xuseen Cabdilaahi madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland oo maanta sheegtay inay ka tagtay shaqadii ay ka haysay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland kadib sida ay muuqaal iyo qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook ay ku sheegtay tacaddi iyo dhibaatooyin ay kala kulantay wasaaraddaasi gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi Dr. Cabdiwali Sheekh Cali Suufi Jibriil Xamda ayaan hadda si toos ah u weydiinayaa sababaha keenay shaqada sababaha uga tagtay iyo bal inay digniino hore iyo waxyaabahaas ay jireen magacaygu Xamda Xuseen Cabdilaahi waxaan ka tirsan ahaan jiray imika kama tirsani runtii waan iskaga tagay gabi ahaanba wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Somaliland waxaan shaqadaasi bilaabay runtii anigu aad u yar oo 19 jir ayaan bilaabay 2009kii ilaa imikoon ka shaqeynayay oo 2021 ay taariikhdu tahay runtii inta aan qarankayga u shaqeynayay wax nacam si hagar la'aan ayaan ugu shaqeynayay runtii anigoo ku bilaabay shaqada markii aan bilaabayay 2009kii Faysal Cali Sheekh aan u ahaa xukayn u ahaa sidoo kale xukayneen wasiir ku xigeen aan ahaa sidoo kale aan ka shaqeyn jiray qaybaha kala duwan ee wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Somaliland muddadii ugu dambeysay uu nala joogay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Somaliland Dr. Cabdiwali Suufi aan wada shaqeynaynay runtii anigoo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda isgaarsiinta oo bariga uu nala joogay waa sanad ka hor waa xilligii conference-ka ka hor uu nala joogay inanka Mukhtaar ee wareegay Sam Cable ayaa shaqadii ka tagay wuxuuna u tagay Sam Cable TV runtii xaq baan u leeyahay anigoo saxaafadda soo bartay xamda ahaan inaan ka codsado wasiirkayga maadaama positionkaasi uu banaanaaday inaan ka dalbado inaan madaxa la magacaabo agaasimo waaxda xiriirka dadweynaha kadib waan u sheegay warqad baan u qortay waxaan ku wasiir waxaan doonayaa booskaas inaad magacawdo maadaama horena u joogay horena uga tirsanaa waaxda ahaana madaxa populationka shaqadaasna aan garanayo runtii aqoon aan u leeyahay xirfadeedana aan leeyahay oo kuna shaqeynay muddo 10 sano haddaba markii aan wasiirku u sheegay arrinkaas uu iga meereystay dhowr jeer xafiiska ugu galay uu iga meereystay kadibna waxaan isku dayay inaan u gudbiyo wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta wasiir Cabdirashiid oo loo yaqaano qambi ayaan u tagay xafiiskiisa aan ku yiri wasiir waxaan u baahanahay positionkaas in la magacaabo oo wasiirka ila hadasho runtii markuu ila hadli waayay una ii jawaabi waayay xataa wax jawaab ay muusin waayay ku yiri positionka already 2 toddobaad kadib intaanu ii magacaabin ka hor ayaa interview xafiiskiisa igu yeeray waliba isagoo iga meereysan oo diidan oo dareemay okay interviewgii baan la galay isla markiiba interviewga intaanu bilaabin baa wuxuu igu yiri Xamda magacaaga waxaan maqlay inaad ciisa tahay waxaan hargeysa adigu ciisa wali ma sanad hargeysa shaqo soo doonatay runtii aad baan u naxay oo interviewgii waxaan ka jawaabi lahaa waxaan ka naxay qabiilka ugu horeysiiyay wasiirku aad baan naxay runtii aad baan uga murugooday aad baan uga damqaday marka wasiirka hadalka yidhi waa kuma Dr. Cabdiwali oo wasaaradda jooga wasiirka wasaaradda runtii markaan ku yiri wasiir anigu aftibaadii Taiwan ku yiri oo Jibril Korbay dhalay hargeysa intaasan ku soo leekaaday de Djibouti iyo meeshaad ka sheekeynaysan ma garanay waa taariikhdeeda ugu sheekay inta ka bacdi 2 toddobaad kadib wuu magacaabay positionkii markuu magacaabay waliba agaasin waaxid population and media isla markiiba waxa la galay lockdown coronavirus-kii shaqadeeda waan gudanayay oo si daacad ah u gudanayay waan shaqaysanayay waliba anigoo waqtigaas si daacad ayaan u shaqaysanayay waxoogaa kadib iyadoo waliba Ramadaan ay tahay oo aan la ila socodsiin wax aan sameeyay xataa ay isla markii waliba xilkayga qaaday agaasimii hore ayaa xafiiskiisa igu yeeray subax wuxuuna ii dhiibay warqadii xilka qaadista oo aan naxay waan yaa waxaan ku agaasimi baan ku wax lagu jiraa waqti Ramadaan waliba iyada ayaa soo dhow waqti yar oo kooban baan xilka hayay shaqadeedana si fiican baan u qabsanayay su'aashan weydiiyay buu joogaa injineer Cali Cabdilaahi Daar waxay shaqadeedii talo maan ka soo bixi way maxaa dhacay wuxuu yiri anigu ma garanayo sababta Xamda shaqadaadana kama soo bixi waayin maxaa la yiraahdaa wasada warqadeedii baan iska soo qad kadib anoo kaabada maraya marka xaamila ayaan haya dhabarka la gurta dhiig baan iga yimiday waan iska aamus wixii oo dhan ba anigoo qarsaday runtii illa agaasimaha cusub ee Aamina
oon wada shaqaynayna iminka ayaa maalin xafiiskeedaan ugu tagay waxaan dareemay runtii in iyaduna isbedel iyadoo weliba cusub ayaan aad uga dareemay isbedel waxaan ku leegaasimo maxaa dhacay shaqadii iminkaabad already aad shaqadii ku cusub tahay maxaa dhacay baan ku yidhi shaqadaydii dad kale loogu sheegayaa oo populationkii maadaama nahay shaqadaydii ay agaasimo waxeedyada kaliya waxaan ay shaqadaydii ay ugu haystaan maxaa dhacay waxay igu jawaabtay Aamina oo ah agaasimaha cusub iminka job description-kaagii dib ugu noqo iminka shaqada ma bilaabaya baan ku yidhi hore waan uga shaqayn jiray 12 sano ka shaqaynay shaqadana waa shaqo aan iminka aan bilaabin hore aan u aqaan already aqoon inagu filan waa la alxamdulillah way aragna waan wahay xogogaalna waan wahay qarankaygana si daacad aan ugu shaqaynay laakiin maanta waxaan halkan ka cadeynaa gabi ahaan bay iskaga tagay shaqadii aan qaranka u hayay ilaahay baa arsaaqada bixiya tacadi wax la qaato ma dulmina wax la qaato ma aha qabiilna qaran ma aha saasaan uga tagay arqaladaha haysa iyo dibatada la igu sameeyay tacadigaas awgeed waxaan u gudbiyay arinkayga markaan wasiirku kelmadda igu yiri kadib waxaan u gudbiyay arinkayga wasiir caateeye oo runtii family ahaan aad iskugu dhawaan si baarinkaaga u sheego arinkii baan u sheegay kadibna wuxuu ugu jawaabay wasiirkii markuu telefoonka kala hadlay Xamda shaqada waa ka gooni oo dadkii oo dhan bay iswada laayeen runtii waxaan joogay 12 sano hal qof bini'aadanku iskhilaaf karaan oo iskhilaafna oo gacan saarno islaynayna subhanallah ma jirto qof weyn oo mas'uulaan ahay taasna waan ka madhanahay cadayna waxa bay ugu filan wasaaraddan taas oo dhan joogay ayaaba cadayn ugu filan oo wareysi laga soo qaadi karaya haddana wasiir caatay hawshiida waxba kama qaban waan aamusay waxaan u gudbiyay arinkaygii madaxtooyada Xamda dhawaan waxa jiray barnaamij aad bilowday oo aad u faafay oo la yiraahdo kaalay la lugay barnaamijkaasi aad buu faafay dad badan ayaa barnaamijka ka xumay ma laga yaabaa shaqadii aad haysay inuu barnaamijka la lugay inay shaqadaada ay saameysay sida darteed in xilka lagaaga qaaday ma xilka waqtiga laga qaado wala waqtiga way ka horeysay Rabadaantiisan horeba u sheegay waqtiga lockdown-ka corona lagu jiray bay ahayd oo waqtiga baan ka wada sinayn shaqada aanu ka sinay talabaad mid baan wala liibaan oo aaminsanahay maanta dadku waxay aaminsan yihiin wasiir iyo agaasimo runtii in badan markaan arko xilka ama aad u hayso bulshada aad u haysa runtii qaranka waan u wada simanahay madaxweyne shacabkana waan u wada simanahay daa wasiir noqoto agaasimo iyo shaqaale hoose ay noqotaba qarankana in si daacad loogu adeego ayaa runtii waajiba qabiilka Soomaaliland ay maanta ku dhaqmaysan in la iska daayo ay aad iyo aad muhiim waayo qabiil waxba ma tar runtii qaranna ma dhiso wasiirka isaga si foolka foolama wala fadhiisatay ma weydiisay sabaha uu xilka kaaga qaaday runtii waan isku dayay laakiin oo xafiiskiisaan ugu galay in arinkaygu sheego laakiin nigoon fadhiisan buu bay yiri waqti kuma hayo dhowr jeer uuba iga meeraystaaba runtii mana garan kara sababta bal hawla weydiiyay isaga insha Allah imkan cabashadaadii la xaliyo oo shaqadii aad ku soo noqoto iyada diyaar moote may diyaar ma yihiin weligeena aan ku soo noqdo waliba ma santay adigoo Ciisa oo wali ma sanad Hargeysa shaqo soo doonatay runtii aad baan u naxay oo interviewgii waxaan ka jawaabi lahaa waxaan ka naxay qabiilka ugu horeysiyay wasiirku aad baan naxay runtii aad baan uga murugooday aad baan uga damqaday marka wasiirka hadalka yidhi waa kuma Dr. Cabdiwali oo wasaaradda jooga wasiirka wasaaradda runtii markaan ku yiri wasiir anigu aftibaadii Taiwan ku yiri oo Jibraab korbay dhalay Hargeysa intaasan ku soo leekaaday de Djibouti iyo meesha ka sheekeynaysan ma garanay waa taariikhdeeda uga sheekay daawadayaal hadda barbarkayga waxa taagan Xamda Xuseen Cabdillaahi madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland oo maanta sheegtay inay ka tagtay shaqadii ay ka haysay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland kadib sida ay muuqaal iyo qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook ay ku sheegtay tacaddi iyo dhibaatooyin ay kala kulantay wasaaraddaasi gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi Dr. Cabdiwali Sheekh Cali Suufi Jibriil Xamda ayaan hadda si toos ah u weydiinayaa sababaha keenay shaqada sababaha uga tagtay iyo bal inay digniino hore iyo waxyaabahaas ay jireen magacaygu Xamda Xuseen Cabdillaahi waxaan ka tirsan ahaan jiray iminka kama tirsani runtii waan iskaga tagay gabi ahaanba wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Somaliland waxaan shaqadaasi bilaabay runtii anigu aad u yar oo 19 jir ayaan bilaabay 2009kii ilaa imikoon ka shaqeynayay oo 2021 ay taariikhdu tahay runtii inta aan qarankayga u shaqeynayay wax nacam si hagar la'aan ayaan ugu shaqeynayay runtii anigoo ku bilaabay shaqada markii aan bilaabayay 2009kii Faysal Cali Sheekh aan u ahaa xukayn u ahaa sidoo kale xukayneen wasiir ku-xigeen aan ahaa sidoo kale aan ka shaqeyn jiray qaybaha kala duwan ee wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Somaliland muddadii ugu dambeysay uu nala joogay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Somaliland Dr. Cabdiwali Suufi aan wada shaqeynaynay runtii
anigoo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda isgaarsiinta oo beriga uu nala joogay waa sanad ka hor waa xilligii conference-ka ka hor waxoogaa ka hor uu nala joogay inanka mukhtaar ee u wareegay Sam Cable ayaa shaqadii ka tagay wuxuuna u tagay Sam Cable TV runtii xaq baan u leeyahay anigoo saxaafadda soo bartay xamdi ahaan inaan ka codsado wasiirkayga maadaama positionkaasi uu banaanaaday inaan ka dalbado inaan madaxa la magacaabo agaasimo waaxda xiriirka